Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiinba soo dhowaada waxaanu ku soo dhowaataan janalka Rayxaan Channel waxaanu halkan kusoo gudbinaa barashada daraasooyin kala duwan si aad ula socoto janalka subscribe saar gambeelkana furo si kuu soo gaaro cashir walba oo aan soo dhigno maanta waxaan qaadanaynaa topic about time. Essay on time. Time is very precious and we should not waste it in any way. Likewise, we can earn the money we spent, but we cannot get back the time we have lost. So this makes the time more valuable than money. Hence, we should not utilize the time in the most possible way. For effectively utilizing the time, we must consider some points which will help us in our whole life. This utilization includes setting goals, prepare work lists, prioritize tasks, and take educate sleep, and various others. In conclusion, we can say that time is the greatest gift of God. Moreover, there is a saying that if you waste time, time will waste you. Only this line is enough to justify how important and valuable time is. Topic about time. موضوع ku saabsan waqtiga. Essay on time. Maqaal ku saabsan waqtiga. Time is very precious. Waqtigu waa shay qaali ah and we should not waste it. Waa inaanan luminin waqtiga in any way wado walba. Likewise, saas oo kale, we can earn the money we spent. Waxaan kasban karnaa oon shaqaysan karnaa lacagtii aan qarash gareynay. But we cannot get back the time. Laakiin dib uma soo celin karno waqtigii we have lost ee aan luminay. So, sidaa darteed, this makes tani waxay ka dhigaysaa the time waqtiga more valuable than money inuu ka qaalisan yahay lacagta. Hence, sidaa darteed, we should utilize the time waa inaan ka faa'iidaysanaa waqtiga in the most possible way wado walba oo macquul ah. For effectively, si taxadar leh, utilizing the time ka faa'iidaysiga waqtiga, we must consider waa inaan tixgelinaa oo aan fiirinaa some points dhowr qodob which will help us in our whole life kuwa oo inaga caawinaya dhammaan nolosheena. This utilization ka faa'iidaysigan includes waxaa ku jira oo ka mid ah setting goals inaan dejinno hadafyo ama yoolal inaan dhigano oon dejinno. Prepare work lists inaan diyaarino tix shaqo ah ama tixooyin shaqo ah. Prioritize tasks iyo inaan kala hormarino shaqada. And take educate sleep iyo inaan qaadano hurdo inagu filan. And various others iyo waxyaabo kale oo kala duwan. In conclusion, gabagabadii, we can say that time is the greatest gift of God. Waxaan dhihi karnaa waqtigu waa hadiyadda ugu ballaaran ee Allah uu bixiyo. Moreover, intaa waxaa dheer, there is saying that waxaa jirto oraah oranaysa if you waste time, haddii aad lumiso waqtiga, time will waste you. Waqtiguna waa uu ku lumin doonaa ama wuu ku dayici doonaa. Only this line is enough. Line-kan keliya ayaa inagu filan to justify inaan saxno how important sida muhiimadda uu leeyahay waqtiga and valuable time is iyo waqtiga sida uu qaali u yahay. Idinkuna waad mahadsantihiin ka faa'iidaysi wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.